calankeena cawaale caawa waa uu 65 jirsaday munaasabad lagu xusayo maalinta calanka 12 Oktoobar ayaa lagu qabtay taalada dhagaxtuur oo kamid ah astaamaha lagu xasuusto halyeedii dhaliyay calanka iyo xurriyadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ay weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay munaasabadan oo lagu maamuusayay laguna weyneynayay dhalashadii calankeena cawaale oo ahayd 12 bishii Oktoobar sanadkii 1954 waana maalintii ugu horeysay ee la gardaadiyay ama la banaan bixiyay sidii curad la jecel yahay calanka Soomaaliyeed. calanka ayaa qaangaar noqday markii uu lugihiisa ku istaagay isla markaana xurriyadda la helay sanadkii 1960 isla markaana ay hana qaaday dawladnimo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed taas oo ku timid halgankii dheeraa ee taariikhda qoran lahaa ee soo bilowday ama uu soo bilaabay Axmed Gurey ujeedkiisuna ahaa in Soomaaliya ay dawlad noqoto. calanka dawladnimada isaga dhalay laakiin dawladnimada ayaa lagu ilaaliyaa calanka waayo calanku dawlad la'aan ma jiri karo. macnuhu waxay tahay marka calankaas iyo dawladnimada ayaa isku dhex jira. calankaas aad u jeedaan oo quruxda badan ma ahan mara caadi ah. macno weyn ayuu ku fadhiyaa. waxa uu taagan yahay xornimadeena, waxa kale uu taagan yahay midnimadeena Soomaalinimo. wax kasta oo aan u baahanahay sida daraadeed waxay ku dhex jiraan oo ay tahay in laga dhex raadiyo dawladnimada. sidaas daraadeed ayaa la rabaa inaan dareeno in dhaqaalaha la kobciyo calanka inooga baahan, in dalka deynta naga cafiyo oo laga shaqeeyo sidii lagu gaari lahaa calankan ayaa nafaray, in shacabka loo helo adeeg caafimaad iyo waxbarasho tayo leh calanka ayaa nafaray, in la dhiso ciidan tayeysan oo lagu ilaaliyo amniga iyo midnimada Soomaaliyeed calanka aan hor taaganahay ayaa iyadana nafartay, in danta guud laga wada shaqeeyo oo la iska ilaaliyo in dawladnimada laga dhex raadiyo dan gaar ah iyadana waa wax uu calanku naga rabo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish oo ka hadlay munaasabada ayaa shacabka Soomaalidu badhaamiyay in caawa ay tahay hameen ku weyn ummadda Soomaaliyeed. waa farxad weyn marka waa farxad la dhihi karo waa xilligii ummadda Soomaaliyeed ay qaan gaartay la aqoonsaday adduun weynuhu aqoonsaday loo ogolaaday kulanka adduun weynuhu inay kursi ku yeeshaan. sidaa darteed ayaan caawa halkaan isugu nimid inaan ku farxadayno ku xafladayno aan muujino sida aan ugu faraxsanahay maalintaas iyada. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa tilmaamay in calanku yahay astaan adduunyadu ay noogu aqoonsan tahay inaan nahay qaran jiro oo madax bannaan isla markaana guud ahaan bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ilaalsadaan dawladnimada haddii la waayana ma jirayso dawladnimo iyo xurriyad. ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed, qof walba oo naga mid ah, meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho. waxaan taariikhda ku geli doonaa sida aan u ilaalino qarannimada, madax bannaanida, sida aan u ilaalino hantida qaranka ugana fogaano musuqmaasuqa, sida aan u ilaalino midnimada, sida aan u ilaalino xuduudaha badda, hawada iyo dhulka Soomaaliyeed. aan xajino calankaas walaalaheenii naga horeeyay ay naf iyo maal ku soo bixiyeen, dhiig u soo hureen si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu soo gudbino kuwa naga dambeeya inagoo xor ah
kuna nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno si aan ugu gudbino carruurteena. hambalyo waa mahadsantihiin. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.